barnaamijkeena interview-yadii ugu adkaa qaybtiisa labaad ayaan ku jirnaa. Barnaamijkan inta badan waxaan kusoo qaadanaa interview-ga dadka laga qaaday, nooca ay ahaayeen kuwa ugu adkaa, dadkii ka gudbay iyo qaabka ay uga gudbeen. Marka barnaamijkan qaybtii labaad waxaan ku bilaabeynaa gabar ka mid ah gabdhaha soo doonta shaqada ayaa la weydiiyey su'aalooyin aad u adag. Su'aashaas runtii adiga haddii lagu weydiiyo waxaa laga yaabi lahaa inaad ku jawaabi lahayd maya, laakiin gabadhan su'aashaas waxay ku jawaabtay haa. Su'aashu waxay ahayd gabadha waxaa la weydiiyey ma jirtaa qof aad asxaan u samaysay oo ka shalayday, macnaha wax wanaagsan oo aad qof u qabatay balse aad ka shalayday ma jirtaa. Su'aasha marka gabadha la weydiiyey adiga waxaa laga yaabaa haddii gabadhaas aad ahaa lahayd booskeeda ku jir lahayd inaad ku jawaabi lahayd maya, wanaag aan qof u sameeyey ma ka shalayi lahayn, mana ka shalayin. Laakiin gabadhani waxay qaadatay go'aan geesinimo leh. Waxay tiri wanaag aan qof u sameeyey waan ka shalayay. Qiso yar ayay ka sheekaysay. Waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah anigoo shaqada ka soo baxay oo xaafadeyda u soo socda ayaan waxaan wadada ka helay boorso. Boorsada waxaa ku jirtay lacag $400 ayaa ku jirtay. Boorsada waan soo qaaday, waxaan ka fiiriyey wax dukumiinti ah si aan u raadiyo qofka boorsadaas lahaa. Laakiin nasiib darro boorsada wax dukumiinti ma wadan, waxay kaliya ay ahayd boorso lacag kaliya ay ku jirtay. Bis xaafadda ayaan tagay tiri waan isdiyaariyey, waxaan ka soo dhaqaaqay xaafaddii markaan nasta kadib waxaan aaday police stationkii. Police stationka markaan tagay boorsadii ayaan geeyay, waxaan u sheegay meesha aan ka helay iyo inaan isku dayay xataa qofkan boorsada lahaa ciwaankiisa inaan ka dhex raadiyo boorsada, laakiin nasiib darro in uusan wax ciwaan lagala xiriiro uusan jirin. Booliiska ayaa igu yiri waa mahadsan tahay, orod meesha xaafadaada iska aad. Kadib waxay tiri waxaan ka soo tagay saldhigii. Mar laga joogo 2 isbuuc oo aan isleeyahay qofkii boorsada lahaa waaba la siiyey boorsadiisii ayaa waxa ay soo wacay saldhigga booliiska. Saldhigga booliiska markay soo waceen waxay u dhaheen bal noo imaaw. Waan tagay saldhiggii, waxaa la igu yiri maalin hore boorso ma noo keentay? Haa, boorsada aad noo keentay lacagta ku jirta waxay ahayd $400. Qofkii boorsada lahaa ayaa noo yimid maanta, wuxuuna sheegay lacagta boorsada ugu jirta inay ahayd $640. Marka waxaa laga rabaa $240 meesha aad geysay. Waan yaabay, waxaan isiri sheekadan maxay tahay? Waxaan ku yiri booliiskii aniga boorsada $400 iyadoo ku jirta ayaan helay. Marka haddii aan lacag u baahanahay $400 ma daayeen. Marka inaad aamintaana fiican. Qofkii waxa uu la soo indhacad yahay markii dambe aniga iyo qofkii lahaa boorsada ayaa nala iskeen tusay. Waxaa la yiri qolkaas tag. Qolkii markaan tagay qofkiiba wuxuu la soo indhacad yahay boorsadeeda waxaa ku jirta $640. $400 hadda ku keentay $240 meesha geysay sheeg. Alcumuum waxaa dhacday ayay tiri in booliiskii uu qofkii baaritaan kale ku sameeyo, ugu dambeynna la yiri qofkii $240 maadaama ay ka maqan tahay qaab loo xaqiijiyana aysan jirin. $240 waa tana qaado. Saldhigga taliyaha booliiska ayaa siiyey $240 qofkii. Marka waxay ahayd marka kaliya oo aan ka shalayay wanaag aan qof u sameeyey. Waxaan islahaa qofkaas boorsadiisa iyo lacagtiisa ha helo, laakiin waxaa dhacday in aniga laftigeyga layga shakiyo oo lay maleeyo tuug boorsada qaybna ka qaata lacagtii qaybna saldhigga booliiska keenay. Gabadha markii sheekada ay dhamaysay, labadii qof oo interview-ga qaadaysay ayaa isfiiriyey, qof walbana wuu sacbiyey. Gabadhaas waxay heshay shaqo 700 qof ay soo codsatay. Marka interview aad qaadayso marka waxay u baahan tahay su'aal xikmadaysan, caqliyaysan inaad qofka weydiiso. Qofka interview-ga laga qaadayana wuxuu u baahan yahay su'aal shaqaabka uu uga jawaabayo inay noqoto qaab caqliyaysan. Gabadhan waxay sheegtay marka koowaad wax qariib ah oo ah asxaan qof loo sameeyo ama wanaag qof loo sameeyo in laga shalayn karo. Tan labaad waxay sheegtay inay aamin tahay. Qisada meesha ugu muhiimsan waa inay aamin tahay oo boorso lacag ay ku jirto inay geysay saldhig inay geysay iyadoo lacagta qaadan karta, waliba cid ogaan kartana aysan jirin. Meel carruurta lagu xanaaneeyo ayaa waxaa ka bilowday ama ka banaanaaday boos. Booska qoladii carruurta xanaaneysay ayaa social media page-kooda soo dhigeen si shaqadaasi dad u qalma ay u helaan. Dad badan ayaa shaqadii soo codsaday
dadka marka waxaa jiray laba imtixaan warqad lagu galayay iyo imtixaan afka la iska weydiinaya oo interview ahaa. Imtixaankii warqadda dadkii ka soo gudbay ayaa maalin la bilamiyay. Su'aalaha maalintaas la isweydiinayay ee qariibka ahaa waxaa ugu darayd su'aal ahayd qof ka mid a dadka soo codsada shaqada xanaaneynta carruurta ayaa la weydiiyey carruur ma dhashay? Haa ayuu yidhi. Waxaa la yidhi carruur haddii aad dhashay ma jiraan ayaa la yidhi wax aad ka baratay carruurtaada adiga wax aad ka baratay. Ma ka hadlaynaa la dhahay carruurta waxaad adiga bartay ma jiraan. Waxaan ka hadlaynaa carruurta wax aad adiga ka baratay. Su-aashaas oo ahayd su'aal adag oo la yaab ahayd. Ninkii ayaa wuxuu yidhi bal 2 daqiiqo halaysiiyo. Waa uu fakaray. Kadib wuxuu yidhi haa waa jiraan. Carruurtayda waxyaabo badan ayaan ka bartay. Wuxuu yidhi marka waxyaabahan carruurta ka bartay waxa ugu horeeya cafiska iyo calool ku qaadka. Wuxuu yidhi inta badan carruurtu ma yaqaanaan wax calool ku qaada. Waxaad arkaysaa daqiiqad ka hor ayagoo isdagaalayay, haddana daqiiqad kadib iyagoo ciyaaraya, weliba qalbi saafi ah. Marka wuxuu yidhi waxyaabahan carruurta ka barto waxaa ka mid ah inaan caloosha wax la isugu qaadin, in isla daqiiqadiiba la iscafiyo, in wixii hore ee u dhacay ee dhib ahaa in la iloobo, noloshana maanta la bilaabo. Qodobka labaad ee uu aadka dadka uga yaabiyo waxaa ka mid ahaa inuu yidhi carruurtu ma yaqaanaan midabta koor. Waxaad arkaysaa mid madow, mid cad, mid dheer, mid gaaban, mid kasta carruurtu inaysan lahayn wax midabta koora. Dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inay qabiil yaqaanaan, inay soo dhaweystaan qabiil, laakiin carruurtu cidda ay fahmayaan oo keliya cunugba cunug uu fahmay ayuu la ciyaaraa. Taas waxaan ka barto uu yidhi cidda aad fahmaysa keliya inaad wada shaqaysataan, cidda aad isfahmayninna inaad kala tagtaan. Waxaan kaloo barto uu yidhi oo la yaab ahayd oo carruurtayda aan ka bartay inaan laga fikirin mustaqbalka. Wuxuu yidhi carruurta waxaan ka bartay inaanba mustaqbalka laga fikirin oo beriya ugu sokaysa inaan laga fikirin oo maanta keliya wixii kaa soo horbaxa la qabto. Way yaabeen marka qolada interviewga qaadaysa waxay dhaheen maxaa kala jeedaa? Wuxuu yidhi marka waxaan kala jeedaa carruurta u fiirso uu yidhi carruurtu inta qalin iyo warqad soo qaato ma dhahayo beri waxaan qabanaa, isbuuca dambe waxaan qabanaa, bisha dambe waxaan qabanaa, sanadka dambe waxaan qaban doonaa ma dhaho. Kaliya wuu seexdaa, wuu soo kacaa, maalintaas wixii ka hor yimaada ayuu qabtaa, isagoo daalan oo habeenkii seexdaa. Beri waxa uu qaban doono ma yaqaano, isla beri haddana waa kana. Marka wuxuu yidhi nolosha stress la'aanta ah waxayba ka bilaabataa inaad ka fikirto beri, bisha dambe, isbuuca dambe, sanadka dambe waxaad qaban doonto. Marka wuxuu yidhi carruurta waxaan ka bartay in maalintaas wixii kaa soo horbaxa aad la dagaalanto, berina wixii kaa soo baxa yeelkeed. Markii uu hadalka dhameeyay ayaa la yidhi beri soo shaqo gal. Maxaa yeelay wuxuu ahaa ninka keliya ee sida saxda ah uga jawaabay su-aashii la weydiiyey. Su-aashaas qof kasta oo interviewga laga qaadayay waa la weydiinayay. Marka qaar baaba ku jawaabay aniga carruurtayda inaan aniga wax baro mooyee iyagu waxba ima baraan. Marka su-aasha qofka wax weydiinaya ee interviewga qaadaya waa inuu qofka weydiiyaa su-aal xigmadaysan, caqliyeysan. Qofka su-aasha ka jawaabayana waa inuu su-aasha uga jawaabaa qaab caqliyeysan. Interviewga saxda ah waa midkaas. Interviewga ugu dambeeya ee la yaabka ahaana wuxuu ahaa qola ayaa shaqo soo codsatay. Dadkii shaqada marka soo codsaday imtixaankii warqadda markii laga qaaday kadib intii soo baxday ayaa waxaa laga qaaday imtixaan interview ayay mareen. Interviewga su-aasha ugu adkeyd ee qoladan ay qaadayeen waxay ahayd qof kasta waxaa la weydiinayay sawirka aad ugu jeceshahay dunida mana tusi kartaa. Marka dadka qaar waxay la soo baxeen hooyadood sawirkooda ayay soo bixiyeen. Gabdhaha qaar waxay soo bixiyeen sawirka ninkooda, wiilasha qaar waxay soo bixiyeen sawirka xaaskooda, qaar waxay soo bixiyeen sawirka carruurtooda mid ka mid ah. Laakiin qof ka mid ah dadkan ayaa ka yaabiyey dadkii interviewga qaadayay. Wuxuu soo bixiyey sawir ayuu soo bixiyey. Walaa waxaa la yidhi adiga maadaama waddan muslimiin aan nahay sababta sawirka eyga aad noogu soo bixisay adiga ma ey iska leh? Wuxuu yidhi aniga ey iskama lihi weligeyna ma yeelan, laakiin eyga sababta aan uu yahay sawirka aan ugu jeclahay waxay tahay waa noolaha ugu daacadsan dunida. Qolada interviewga qaadaysay ayaa isfiiriyey waxaana isla markii ay sawirteen inuu ninkan yahay nin jecel daacadnimada.
daacadnimada waa mid ka mid ah waxyaabaha shaqada lagu helo. Ninkani markaa maadaama uu A soo bixiyey, Aygana uu ku doortay daacadnimada, sawirka dunida uu u jecel yahana uu ka dhigay A. Waxaa la yidhi ninkan waa nin u qalma shaqadan, waxaana lagu yidhi soo shaqo gal maalin heblaaya. Ninkan wuxuu ku guuleystay waxyaabo la yaab leh. Marka waxaa loo baahan yahay mar kasta inaad ka duwanaato dadka kale. Tusaale sida caadiga ah, adiga aniga qof kasta haddii la weydiiyo sawirka dunida ugu jeceshahay keen, waxaa laga yaabaa aniga hooyaday inaan soo saaro, adiga hooyo soo saari lahayd, adiga mid kale hooyo soo saari lahaa sawirkeeda, laakiin ninkani wuu ka duwanaaday. Inta badan marka dadka interviewka qaadaya waxyaabaha ay fiiriyaan waxaa ugu horeeya unique qofka. Tusaale 10 qof aad interview ku galaysaan, 10kiina 8 ka mid ah sawirka ay soo bixiyeen wuxuu noqday xaaskooda, ninkeeda, hooyadood ayuu noqday. Qofaaba ay soo bixiyay, ayga sababta uu soo bixiyay waa la weydiiyey, wuxuu sheegay inay tahay daacadnimo. Qofkaasi marka wuu ka duwan yahay dadka kale. Inta badan marka dadka interviewga qaadaya waxay firiyaan unique qaabka su'aasha uga jawaabaysid inay ka duwan tahay qaabka dadka kale ay uga jawaabeen. waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad ka heshay. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta ha iloobin. Haddii aad hore noola socotana like-ta saar mawduuca si uu dad badan u gaaro. Intan qaybta saddexaad ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.